dambeeyay iyo fadeexadaasi loo jeedinaya maalmihii la soo dhaafay waxa ka jira iyadana waa idin la wadaagi doonaa soo dhawaada idinkuna muuqaalka like saara aragtidina inay gula wadaaga qaybta commentiga aan ku bilaabay magaalada Gaalkacyo waxa maalmahan ba ka taagnaa arrimo argagax badan iyada oo laba maleeshiyo beeleed ay ku dhex dagaalameen habeen ka hor gudaha magaalada isla markaana halkaasi lagu dilay dhakhaatiir laba nin oo dhakhtar ayaa lagu dhex dilay magaalada Gaalkacyo saacado isxiga ama maalmo isxigay iyadoo ay bulshada argagax badani ay ku beertay rag dhakhaatiira oo isbitaalada ka shaqeynayay oo bulshada u adeegayay oo aqoontooda ku caawinaya ku garab taagnaa ayaa gabi ahaanba nafta la dhaafiyay taasoo shock badan ku abuurtay bulshada magaalada Gaalkacyo xaaladdu hadda way degan tahay labada maamul oo markaasi ka wada taliya magaalada Gaalkacyo qaybta Puntland iyo qaybta Galmudug ayaa iyagoo iskaashanaya waxa ay dadaal badan ku bixiyeen sidii loo dabin lahaa colaadaasi u dhaxaysa labada beelood ee walaalaha ee halkaasi ku dagaalamay guul weyn baa laga gaaray walow aan la soo afjarin xaaladda magaaladu hadda way degan tahay balse waxaa soo kordhay in ciidamo hubaysan oo taabacsan mid ka mid ah musharaxiinta u tartamaya kursiga duqa magaalada Gaalkacyo oo ay doorashadiisu ay socoto ama ay qabanqaabadiisu ay socotay maalmihii la soo dhaafayba ciidamo taabacsan ayaa la wareegay xarunta dawladda hoose ee magaalada Gaalkacyo ciidamadan ayaa gacanta ku dhigay xaruntii dawladda hoose iyagoo gabi ahaanba meesha ka saaray ciidamadii halkaasi ku sugnaa waana ciidamo markaasi taageersan mid ka mid ah musharaxiintii u tartamayay duqa magaalada Gaalkacyo ee qaybta waliba Puntland arrintan ayaa sababtay kadib markii musharaxaasi loo diiday shahaadada uu doonayay inuu ku tartamo oo waliba xisbiga ka ahaa isla markaana laga reebay dabcan dawladda ayaa wadata qof kale qofkana ninkana waa la reebay oo joog baa leeyay kan ayay wadatay sidaas awgeed ayuuna marka khilaaf xogan uga dhashay ciidamo markaasi taabacsan musharaxaasi la reebay ayaana la wareegay qaybta degmada wax ku dhintay ma jiro dagaal kama dhicin ciidamadii ku sugnaana waa baneeyeen kuwana waa qabsadeen haddana waxaa socoto waa lagu dajinayo markaasi lagu soo afjarayo ama lagu qancinayo ciidamada markaasi taabacsan musharaxa ama musharaxa naftigiisaba waynu eegi doonaa waxaa socdo olole xoogan oo doorashada duqa magaalada Gaalkacyo oo waliba dhinacyo badan baa isku hardinaya oo siyaasado badan baa faraha kula jira waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa magaalada Garowe duleedkeeda waxaa maanta ka dhacay dhacdo argagax badan oo lagu dilay laba qof oo shacab ah waxaa la sheegay in nin hubaysan uu rasaas ku furay laba qof una halkaasi ku dilay laba nin ayaa halkaasi lagu dilay ninkiina waa baxsaday kadib saacado ay laamaha amniga odayaasha dhaqanka iyo waliba dadka deegaanka kaleba ay iska kaashadeen sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa gacanku dhiglahaasi waxaa lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo oo la soo qabto laamaha amniga oo ka baxay waliba magaalada Garowe ayaa gacanta ku soo dhigay oo hadda saacado ka hor la soo sheegay inay gacanta ay ku hayaan iyagoo waliba kaashanaya dadka deegaanka odayaasha dhaqanka ayaa qayb lixaad la ka qaatay si waxa weeye loo soo qaban lahaa gacanku dhiglahaasi wali lama cadaynin sababta keentay in labadaasi qof uu dilo iyo waxa ay isku haysteen waynu eegi doonaa iyadana waan idin soo gudbin doonaa maalmahan hadalhaynta ugu weyn geyiga maamulada Puntland waqooyi bari iyo waliba geyiga Soomaaliyeedba waa wasiirada warfaafinta ee maamulada Puntland iyo waqooyi bari oo hadallo aydi ugu falxumayd ama ugu badnayd baraha bulshada isku marinay waxaana soonayn in xaflad ay ka dhacday magaalada Garowe oo markaasi lagu xuseeyay xarika jarka wabiga Abaay ama biyo-xidheenka Abaay raali ahaada biyo-xidheenka weyn ee Itoobiya Abaay oo markaasi ay ka qayb galeen wasiiro ka tirsan xukuumadda Puntland oo uu ka mid yahay wasiirka warfaafinta waxaa bartiisa Facebook soo dhigay qoraal kooban wasiirka gaashaandhigga ee dawladda federaalka Soomaaliyeed Axmed Macalin Fiqi oo yiri baahida iyo waxa weeye xishoodanta maanta jirtay dabcan wasiiradii saxaabada la ordayay ayuu ka filceliyo qoraal kooban buu soo dhigay qoraalkaas ayaa hal mar waxa ka wada jawaabtay intaasoo qof saddex wasiir oo Puntland baa ka wada jawaabtay saacado gudahood waxa sidoo kale to ayadana ka soo jawaabay wasiirka warfaafinta ee maamulka waqooyi bari arrinta markay imaatay kii waqooyi bari baa hadana loo jawaabo wasiirka warfaafinta ee Puntland baa hadana u jawaabay waxay gaadhay in qabaa'ilada xataa la iska saaro oo qaar loogu atiriyo hawiye qaarna hawiye kale loogu atiriyo oo daaroodnimadii iyo hartinadii la iskala baxo ay noocii ugu xumayd
ayay labadaasi wasiir ugu dambeyn ay isla gaadheen. barkhadoo ugu dambeeyey oo hadlay isagoo oo jooga magaalada Buuhoodle waa wasiirka warfaafinta waqooyi bari ayaa yidhi nin aan matalaad lahayn oo meel u matala lahayn oo siyaasad cid ku matala lahayn oo calooshii u shaqaysta una oo waxa weeye wax ay ku bil qaata sidoo wax u ay la kaliya haduu ay waayana biilka laga jaranayo ayaa waxa weeye annagana soo tataabanaya oo la jeedo wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland. wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland isagana waxba ma uusan reebanin wax uu soo reebtay ma jiro. waxaad moodaa marka jawaab celinta iyo aflagaadada wasiirada Soomaaliyeed inay aad u soo badanayso taas oo mashquul ka dhigaysa wax walba oo ay bulshada u qabanayaan ama shaqadii loo idmaday in ay ka mashquulaan macquul noqonaysa. waa arrin foolxun oo aad iyo aad u foolxun in ummad Soomaali ah wasiirnimo waxa weeye ummadda Soomaaliyeed wasiirra u ah inay aflagaado ay maalin walba la taagnaadaan oo ayagun ay isfiirsadaan oo meeshii wax la qaban lahaa curin la raadin lahaa bulshada waxa weeye la garab istaagi lahaa shaqaabuur la raadin lahaa qorshe kaleeto oo bulshada anfacaya la raadin lahaa in iyagii ay isdhowranayaan oo midba midka kale waa aflagaadaynayo halkuu ka aflagaadaynayana uu raadinayo ilaa waxa weeye qofku hal qalbi buu leeyahay. haddii adiga aan kugu talagalo inaan maanta kula dagaalamo dee waxaan raadinaya halkan kaa soo geli lahaa sida aan kuu wiiqi lahaa sida aan kula dagaalami lahaa. marka nin raadinaya ninka kale soo cayn lahaa wuxuu maanta oo dhan ka fikiraya cayda halkuu ka geli lahaa. hooyadii yay ahayd aabihii yuu ahaa aabihii abtigiisa xagee ahaa awowgii riyaa raabti u ahaa ayaydii yaa raabti u ahaa hooyadii isirkeedii halkee ahayd xagee geli jireen waxaasuu ku mashquulaya. goormaa dantii guud ee bulshada marka la qabanaya waa arrin aad iyo aad u foolxun oo baryaha kusoo badanaysa gayigeenna Soomaaliyeed. ilaahay waxaan leenahay mas-uuliyiinteenna ha tusiyo arrimaha loo idmaday iyo mas-uuliyadda saaran. midda saaran baa ka weyn midda ay kuwa kale ugu jawaabayaan. midda iyaga saaran baa ka weyn. waxaana da'yarteennu maanta hadday ku barbaarto waxa maanta socdaay sidee xaalku noqonaya oo haddana ay role model u yihiin rag waaweyn oo 60 jir iyo 50 jir ah oo dadkii hogaaminayo haddana indhihii bulshada oo wasiir baarahay haddana uu hogaaminay. waa arrin la yaab leh hadduu noqdo mid federaal iyo hadduu noqdo mid maamul goboleedba. waxaan dhihi lahaa marka muuqaalkan cid walba uu soo gaaro warbal ha laga waaniyo oo ha lala hadlo wasiiradu ha ka fogaadaan isku jawaabista wasiirka kale loo jawaabay oo ha laga wada hadlo bal wixii shaqaa oo bulshada hortaaliya nin walba mas'uuliyadda hortaala sidoo u gudan lahaa kaliya ha laga shaqeeyo. taasaan dhihi lahaa aad iyo aad baad daawadayaal u mahadsantihiin idinkana si walba oo mar walbaba waxa weeye dhiirigelinta mar walba aad noo samaysaan iyo sida aad ugu xidhantiin iyo dulqaadka iyo weliba aragtidiina aad mar walba noo soo waxa weeye kasoo dhiibataan qaybta commentiga aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin.